mahadsanid. Waxaan xilligan ku suganahay meel aan sidaa ugu fogeen hotel Xayaad oo habeennimadii xalay ahayd weerar ku bilowday qaraxyo lagu galay dadka Ilaahay ka badbaadiyay waxa ay sheegeen dableydii gudaha u galay hotelka inay durba ay bilaabeen toogasho dadka goobta ku sugnaa hotelka oo xilliga aad u camirnaa waxa goobta ku sugnaa qaar ka mid ah mas'uuliyiin xil ka soo qabtay dawladii markaasi dawladihii kala dambeeyay Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka waxa inta barbar socdeen mas'uuliyiin kale ay meesha ku cabeynayeen bulshada qaybadeeda kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen culimo iyo sidoo kale ganacsato ayaa goobta ku sugnaa marka ay weerarada bilaabanayeen inkastoo la soo warinay qaybtood inay ku dhaawacmeen ha ahaato hotelkan wuxuu ku yaalaa meel aad loo ilaaliyo waxa ku dhow xarunta dambi baarista ee CID-da hotel Saxafi hotel Afrique waxa ku dhow checkpoint aad looga ilaaliyo airport-ka magaalada Muqdisho oo ay ku sugan yihiin ciidanka sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxa inta barbar socdo hotelka xilliga markaasi la weerarayay oo weerarka bilaabanayay waxay ahayd xilli dadku inta badan bulshada qaybadeeda kala duwan goobahaasi ama meesha ay weerarku ka dhacay aad markaasi u caweynayeen oo ay ku sugnaayeen waxay ahayd fiid hore ha ahaato dad badan ayaa qaybaha kala duwan bulshada markaa goobta ku sugan tahay oo ay soo gaaraan waxa ay sheegayaan in qofkoodu ay waysan yihiin walina si rasmi ah looma soo afjarin dagaalkii habeennimadii xalay markaasi ama weerarkii xalay ay dableyda ku soo qaadeen hotelka oo ay gudaha u galeen inkastoo hay'adaha ammaanka ay sheegayaan in ay soo afjareen hase ahaatee dhawaan ay warbaahinta la hadli doonaan balse wali looma ogolaan warbaahintu inay gudaha u galaan oo xogaha markaasi rasmiga ay soo gudbiyaan hay'adaha ammaanka ayaana sheegaya in ay dhici karto in qaraxyo kala meelaha ay kaga tageen sida darteedina ay rabaan in hay'aduhu ay sifeeyaan kadibna warbaahinta loo fasaxo marka weerarkan u dhacay durbadii hay'adaha ammaanka ayaa goobta soo gaaray inkastoo la sheegay in gaari kale walxa qarax laga buuxiyay loo diyaariyay la dhigay aaga kilometer 4 si gurmadka dawladdu markaasi loo waxyeeleeyo inkastoo gaarigaasi taameesh oo ku qarxay dadka dhaawacyada soo gaaray waxa qayb ka ahaa taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir Muxyidiin Warba taliye mahad korow oo isaguna kamid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya qaybta waliyo cad ayuu hoggaan u yahay nabadoon bootaan Axmed ah kamid ah gudoomiyihii hore baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casira kamid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka xalay ka dhacay hotel Xayaad sidoo kale waxa kamid ah Daahir Caga Dahab dadka ku dhintay ilaa xilligan la soo warinayo waxa kamid ah ganacsade Ibrahim Xasan Sheekh Maxamed Baabili عبد هادي يوسف مهد برو إبراهيم راجع محمد شيخ دتكو سيدو كلا دت بدن واحد أركيسا دتكو كم قيهن قيبتود أي بره بالشدة صور دقيقان يكسو حالي أرمها أو عجائب سنة قيب كاهد إن قاب تقرح وكذا عي أو أي كسرناهن المير oo hooyadood markaa ay banaanka jirtay oo Ilaahay badbaadiyay ilmihii kadib hay'adaha ammaanka ayaa soo badbaadiyay ciyaalkaasi iyagoo bad qaba ayaa ay banaanka u soo baxeen oo banaanka loo soo saaray waxa baraha bulshada lagu arkayay muuqaalkoodii iyagoo ka sheekeenayo sida ay wax u dhaceen oo ay sheegayaan in ay suuli galeen oo Ilaahay meesha ku badbaadiyay caalamiin maxaa ku dhacay أي محلات وحيت هذا السولي كان عرفنا قرح هذا عم سقشان قلنا فاهم يا ليه الحمد لله رب العالمين ورثي صوبا ورثي صوبا عاو بحارك يا عاو بحارك ولي وحيليgan si rasmi ah warbaahinta lama hadlin laakiin qorshuhu hay'adaha ammaanku waxa ay sheegayaan in dhawaan ay la hadli doonaan warbaahinta si
ay kaga warbixiyaan dhibaatadii dhacday khasaaraha inta uu la egyahay iyo sida ay ugu guuleysteen ciidanku in ay soo afjaraan dagaal in ka badan muddo 10 saacadood qaatay oo markaasi ay ciidamada dawladda kaga saarayeen kooxdii dableyda ahayd ee soo warartay hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho xilligan isu socodkeeda waa caadi ganacsiga soconayo gooy waxbarasho way furan yihiin laakiin istaraatiiji ahaan sawir guud markaan ka bixiyo waxa xiran guud ahaan goobihii ee ka agdhawaa hotel Xayaat ama wadooyinka soo galay guud ahaan way xiran yihiin ciidanka ammaanka ayaa goobta ku sugan iyagoo sheegay in badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee goobtaasi soo gaaray ama maray aan ka warhayn xogaha rasmiga ah ee goobta ka socda in ay ka badbaadiyaan oo ay ka celiyaan meesha si aysan markaasi dhibaato kale muwaadiniintaasi ay u soo gaareen wixii kale ku soo kordho calandoon ayaa kala socon doontaan